hadda waxaan mariyeynaynaa 5 milyan maxaa yeelay gobolka banaadir inta kale soo ballan qaaday oo noogu daraya saxaafadda shaqadiina qabsada okay aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa madaxda naga raali ahaada kicitaanka aan soo kicinay booskiina noogu laabta idinka oo mahadsan soo dhawaada mudane madaxweyne kusime iyo mudane ra-iisul wasaare iyo safiir hadda waxaan siin doonaa kalimateen safiirka safaaradda turkiga halkaan u jooga saaxiibkan ibraahim fali tafadalo Bismillahirrahmanirrahim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bismillah, dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta muslimka. Waxaan idin soo gudbinaynaa salaan ka timid kalka iyo laabta. Ben bir ay önce göreve başlayan yeni Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Erdoğan'ın Mogadishu'daki Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı. Waxaan aniga shaqada imid hal bil ka hor waxaana isoo magacaabay aan ku imid amar ka soo baxay madaxweynaheena Rajab Tayyip Erdogan magaceyguna waa Safiir Ibrahim Mete Yağlı. Türkiye ile Somali'nin modern tarihi 2011'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın buraya ziyaretiyle başlıyor. xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Turkiga ee qarniyadii ugu dambeeyay wuxuu dib u bilowday 2011 markii uu booqasho ku yimid ra'iisul wasaarihii hore ee hadda ah madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Sayın Erdoğan 2011 yılında buraya gelmeye karar verdiğinde o tarihte Somali'nin